dhul dham oo sharciyeysan oo jaamacaddu lahayd oo dhowr iyo 10 sano cashuurteeda bixinaysay in lagu soo duulaa wax sharciya maaha ma mudna in dhulkii wax lagu baran jaacadu lahayd ee loogu talagalay in loo dhiso ardayda Soomaaliland meel ay joogaanba say wax ugu bartaan in shirkado barayfadihi ay maanta waxa weeyaan iyaga oo awood iyo marka lacag isticmaalaya inay markaa boobaan sharcigu shaqeyn waayana oo aan leedin wax sharci ah ma shaqeynayana tii hala sheego cid kasta anagu wadaan dhulka kale ku duulneedii shirkadda Omar shirkadda oo aanu haysanin wax sharciyad ah dhulkaas ayaa runtii isku dayeysay inay dhulkaas qaadato inay boobto ku xumahay arinta ku timaaday jaamacadda in dhulkeeda laga qaatay soo waxa rajeynayaa in dhulkeeda wax laga qabto oo loo soo celiyo insha Allah jaamacaddu lahayd lagu soo duulay oo ay ku soo duushay shirkadda Omar la yiraahdo iyadoo wax sharciya iyo wax dhugmati aan u haysan ku soo duushay inta ka bacdi anagoo halkan ah farayaashii jaamacadda Admas waxaan u taaganahay maanta bisha ay 9 tahay jaamacadda dhulkeeda oo ay saacadu lahayd 14 sano oo deer ku xiran yahay oo cashuurta dawladda hoose ay bixin jirtay jaamacaddu ayaa maanta waxa arkaya markaa dad barayfada ama shirkad barayfada oo ku soo qaaday markaa weerar iyo boob waxa soo aan markaa ku banaanayn sharciyada iyo dawladnimada iyo kala dambeynta dalku leeyahay sharciyada kaanagoo amarayaashii jaamacadda ah maadaama ay jaamacadda meelaha laga noolaado mujtamac kasta ka noolaado oo aqoonta lagu dhisaayo daayirtu wax ku baranayaan ayna tahay meelaha la ilaaliyo marka la rabo mujtamac in kor loo qaado mustawihiisa dhaqaale mustawihiisa ijtimaaciga nooc kasta uu yahay in la ilaaliyo laga qayb qaato ma mudna in dhulkii wax lagu baran jaacadu lahayd ee loogu talagalay in loo dhiso ardayda Soomaaliland meel ay joogaanba say wax ugu bartaan in shirkado barayfadihi ay maanta waxa weeyaan iyaga oo awood iyo marka lacag isticmaalaya inay markaa boobaan ayadoo dawladii hoose waraaqaheedii oo dhan la hayo dawladda hoosena aanay la soconin meesha ay ka socotana aan la garanaynin ayaa waxaan maanta u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliland shacabka in arintaasi ay tahay arin sharci darro ah loona sheegayo markaa waxa cidda ka dambaysa in sharcigu sareyn doono hadii Ilaahay yiraahdo waayo ma dhici karto dalka hadii cadaalad markaa lagu dhiqi waayo ama cadaaladu ay baabado dalkaasi hor u socon maayo sidaa daraadeed anagoo barayaashii jaamacadda ilaa 14 sano ka shaqeynayay jaamacaddan dhammaan ardaydii iyo ciidii mas'uuliyiinta jaamacadda waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku sheeganaa in arintaasi sida ugu dhaqsaha badan leh looga hortago dadweynaha iyo dawladda iyo cid kasta marka arintaasi marka wax weeyaan ay marka khusaysaba waxaan leenahay marka mar labaad iyo mar saddexaadba arintaasi arin aad u fulxin weeyaan waa in hore looga hortago arintaas السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى وبركاته. أنا وياي مقعد عبد الرحمن جامع فارح أو كميدا أرضية جامعة أرمس أنا كوا الله يأفكار أرضية جامعة هل كانوا حنسكوي من أنا جيو إن معاملة جامعة يوم إن أرضية يوم معلمين توبا إن أنا كوا هالنو تعدادي فوش حماية الشارع هالك أكاد عضي تعداد سوا إن دول كي جامعة دول هاي لجوسوا دولي أو يجوسوا دوشي شركة أمار لا يراهدو يلا واحد شرعية يواحد دقمتين وهايسن kusoo duushay waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ay khusayso arintaas inay wax ka qabato waxaan kaloo halkan fariin u dirayaa labada madaxweynaha dalka madaxweynaha sii degaya madaxweynaha dalka jooga arintaa halkaas shalay ka dhacday cid kasta way arkaysay inay wax ka qabato waxaan u sheegayaa wasaaradda arrimaha gudaha arinka inay wax ka qabato waayo dhul dham oo sharciyeysan oo jaamacaddu lahayd oo dhowr iyo 10 sano cashuurteeda bixinaysay in lagu soo duulaa wax sharciya maaha shirkadda Omarna waxaan leeyahay dawladda hoosena waxa uu sheegayaa dawladdii dalkaatiin inaad shirkad dham oo aan wax sharciya iyo meel allaale meel ay ka soo gashaan garanayn inay waddankiis ka falaaqooto wax aqli galaa maaha waxaan leeyahay uu sheegayaa warde arintaa in wax laga qabto cid kasta oo shuqul ku leh inay wax ka qabato annagu haddaan nahay ardaydii waa halkii waxna taraysay waa halkii aan wax ku dhiganaynay ee jaamacadda laga hirgelinayay waana waxbarashaduna waa furaha kaliya ee iminkan wax kala fuliya cid kasta oo arintaas wax laga qabto haddii de sharcigu shaqeyn waayana oo aan leedin wax sharci ah ma shaqeynayana dee hala sheego cid kasta anagu wadaan dhulka kale ku duulneedii wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed kana tirsan maamulka jaamacadda Admas waxaan maamulka jaamacadda Admas waxaan rabaa maanta inaan halkan kala hadlo oo runtii aan cabasho iyo codsi labadaba u gudbino
dhammaan madaxda dowladda Somaliland heerarkeeda kala duwan heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo intaba taasoo khusaysa in jaamacadda Admas dhul ay ku lahayd degmada Koodbuur in si sharci darro ah oo غير sharci ah ay ula wareegayso ama ay u boobayso shirkadda Omar shirkadda oo aan u haysanin wax sharciyad ah dhulkaas ayaa runtii isku dayeysay inay dhulkaas qaadato inay boobto dhulkaas oo jaamacadda Admas muddo 14 sano ah ay lahayd oo ahaa dhul ay canshuur bixiyo oo ahayd oo ay canshuurtiisa bixinaysay waraaqihiisa sharciyadiisii iyo dhammaan dokumentiyadii loogu talagalay lahaanshaha dhulkana ay jaamacaddu haysato ayaa waxaan ka war helay in maalintii shalay ahayd oo 8 bish ay shirkadda Omar si sharci darro ah u qaadatay dhulkaas oo ay isugu dayeyso inay u dhisato waxaan rabnaa anagoo ah maamulkii macallimiintii iyo ardaydiiba in aan cabashadayada iyo codsigayaga gaadhsiino madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha mudane Muuse Biixi oo ah madaxweynaha sii baxaya iyo madaxweynaha soo galaya mudane Cabdiraxmaan Ciro iyo dhammaan laamaha cadaaladda iyo guud ahaan bulshada Somaliland sidaan wada ognahay jaamacaddu waxay bixisaa adeeg dadweyne ma aha shirkad samaysa profit ama ma aha shirkad faa'iido raadis ah dhulkaasi wuxuu dhul loogu talagalay in loogu adeego jiilasha cusub ee Somaliland ee soo socda kuwa hadda jooga kuwa soo socda adeeg waxbarasho oo runtii qayb ka qaadan lahaa in xataa ardayga laga yareyn karo yani qiimaha tuition fee-ga ee imika laga qaado haddii ay jaamacaduhu ay helaan dhulka ay xaq u leeyihiin runtii sida kan oo kale waxaan runtii cod dheer ku soo gudbinaynaa in shirkadda Omar oo dhisanaysa dhulkaasi aanay wax sharciyada u haysanin in shirkadda Omar oo isku dayeysa inay dhulkaas boobto wax sharciyada oo maanta gacanteeda ku jira aanay jirin dhulkaasina uu yahay dhul ay jaamacadda Admas ay leedahay muddadaana ay ka ahayd canshuur bixiye ay lahayd runtii waa nasiib darro maanta 2024 in shirkado gaar loo leeyahay oo private ay isku dayayaan iyagoo ka faa'iideysanaya financial leverage-kooda inay isku dayaan inay dhul boob sameeyaan oo ay institutionada iyo shakhsiyaadka intaba inay boobaan intaasaan rabnaa fariintaasaan rabnaa inaan soo gaarsiino asalaamu calaykum waraxmatullahi aniga ku hadlaya afka ardayda jaamacadda Admas waxaan ku xumahay arrinta ku timaaday jaamacadda in dhulkeedii laga qaatay soo waxaan rajeynayaa in dhulkeeda wax laga qabto oo loo soo celiyo insha Allah waxa weeyaan arintaa ka soo korodhay dhulkii jaamacadda oo ay shirkad kale ku haysato waxaanu leenahay anagoo ah ardaydii dhiganaysay jaamacadda iyo ardayda dee waxa ka faa'iideysanaysa ardayda ku dhigata iyo dhammaan ardayda jiilasha dambe oo dhan buu anfacaysaa arintaa ka soo korodhayna waxaanu aragnaa arin sharci darro ah markaa waxaanu leenahay cid kasta oo ay khusayso inay si degdega wax uga qabato maadaama ay tahay dhul ay dan guud oo ardaydu ay looga faa'iideynayo oo jaamacaddu uga faa'iideynayso oo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan shacabka Hargeysa iyo dhammaan Somaliland inta ku dhaqan oo dhan uga faa'iideynaysa qaladna waxaan u aragnaa arintaas arin qalada waxaan diraynaa fariin u diraynaa dhammaan cid kasta oo ay khusayso hadday tahay madaxweyne iyo hadday tahay maayir iyo hadday cid kastaba tahay waxaanu leenahay arintaa insha Allah si degdeg ah wax looga qabto